halkani waa Ankara waana caasimadda Turkiga muuqaal ahaan waa magaalo aad u qurux badan kolka aynu ka waramayno iyada laakiin tani ma aha sheekada Ankara Soomaali badan ayaa Ankara ku nool waxayna ka sameeyeen ganacsiyo kala duwan sidoo kale arday Soomaaliyeed ayaa halkan wax ka baratay qaar kale deegaan ayay ku yihiin hayeeshee wali sheekadani ma aha mid ku saabsan Soomaalida Turkey ganacsiga waxbarashada iyo caafimaadka u soo doonta suuragal waxaad oranaysaa madalxiisayaal ayay ku saabsan tahay warbixintani maya kuma saabsana bartamaha Ankara ayaan kula kulmay hal abuurka sheekadan oo ay ugub tahay Soomaalida dhexdeeda kani waa Saadiq Cabdi wuxuu sitaa calanka Soomaaliya iyo warqad uu ku qoran yahay dhambaal dheer oo uu u dirayo madaxweynaha Turkiga Erdogan Farinta Saadiq waxay ahayd mid dareen wadaniyadeed xambaarsan ka sokow dalabkiisa shakhsiga ahna wuxuu madaxweynaha dalkani ku yiri mudane madaxweyne sida hagar la'aanta ah ee aad u taageertay dalkayga Soomaaliya waad ku mahadsan tahay waxaanu waajahaynaa xaalad adag oo hantidii dalkayga ayaa shisheeye qaateen qayb ka mid ah sida badda Soomaaliyeed Soomaaliya waxaad og tahay sida loo kala qaybiyay waxaanu yeelanay ilaa 7 madaxweyne taageeradaada ayaanu u baahanahay halkan waxaan ku qoran fariin oo ah inaan dhalinyarada Soomaaliyeed aan ku baraarujiyo inay wax walba qabsan karaan cilad kasta oo jirta waddanka marxalado badan oo ku jira halkan waxa ku jira dhibaatooyinka qaar aan sheegay oo ay kamid tahay in dalkayga markuu burbura la keenay sharci cusub oo dadkeena kala qaybinaya 7 madaxweyne 7 dastuur iyo 7 dawlad goboleed haddana meeshan waxa ku xiga in dadkayga ay ku dhintaan qaraxyo joogto ah fatahaadaha abaaraha hadda sida gada waxa ka taagan aanan haysan madax caayaheena si toos ah uga fakarta ay u baahan tahay cid kasta in ayadoo issamata bixiso halkan waxa ku jirta waxaan ku qoray oo ah in dhulalkeeni iyo badaheeni ay qaateen wadamo darisa waana wax xaqiiqa maantadan badeena lagu haysta baa taagan Saadiq oo wali sheekadiisa iiga waramaya wuxuu madaxweyne Erdogan ka codsaday in uu helo waxbarasho wuxuuna da'yarta Soomaaliyeed ugu baaqay inay wax bartaan si ay Soomaaliya uga samata bixiyaan duruufaha adag ee ay wehelka u tahay halkan waxa ku xigta in aan ku qoray sababta halkan u yimid waa madaxweynaha waddanka Turkiga aan ka codsaday inuu isiyo waxbarasho aanu cidna lacag kama rabo oo waxbarasho raba qofku ma ku aqoon leeyahay dadka bulshada ah hogaamiye u noqon kara mugdigu ka saari kara culayska iyo dhibaatada jirto ka saari kara rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam ka adduunka loo soo diibay quraana loo soo diibay diin waday oo dadka xaq iyo baadilka ugu kala sheego dad milis waxay noqonaysaa in aqoon leedahay marka darabtina ummad aad mugdi ka saartid waad ifiyo u noqotid marka halkan waxaan ku qortay aan awoodi karin lacagta waxbarashada marka la iga saacido inaan waxbarasho helo halkan Turkiga way waana Ankara caasimadeedii dhalinyaro badan oo Soomaaliya timid xitaa qaar ila socdo way tahriibeen xaq u leeyahay marna uu qaldayn qofku inuu tahriibo marka xaq u leeyahay waxay tahay qofku mar rabo inuu dhibaato ku jiro qarax iyo dhimasho iyo balaayo ku jiro nolol u raadsanaya marna waa qaldanto waxa weeyaan waddankaaga adoo hadaadan dhisan cidnimo ku dhisayso qofka la rabo in uu intuu wax u barto u laabto adiga hadaan aanu hadda baxo waan Greega maro aan Austria tago ama Jarmalka aan tago 8 sano 7 sano waa inaan sharci suga waa inaan suga inaan qaxooti siyaasi 8 sano 7 sano hadaan wax ku barto waddankayga bari waan dhisan karaa marka ujeedadaas aan u taaganahay halkaas waxaan ku qortay in Ilaahay aan ka rajeynayo inuu ii sahlo inaan aqbalaadeeda helo maxaad dhihi lahayd dadka Soomaaliyeed oo ku daawanaya adduunka meel walba ka joogaan oo jeclaan lahayd aad ku dhihi lahayd inay ku garab istaagaan ma yani waxaan rabaa inaan iraahdo qof walba meesha joogtid hadii waxbarasho aan la'aan ku haysato inta qaxooto codsan lahayd waxaad codsataa waxbarasho deetana waddankii ku laabaan wax u dhisana marka waxa weeyaan qof walba Ilaahay inuu ka cabsado inaan ka hortagno in kala qaybiyaan ay gobolo gooniyaan oo kala saaraan qabaa'ilo gooniyaan oo kala baxan in la iska ilaaliyo inaan waddankeena dhisana anagu aan u istaagno intaasaan farayaa waana maasanta sidan oo kale in Soomaalidu fariimaha u gudbiso waa mid ugub ah laakiin dunida qof kasta riyadiisa waxa uu baadi goobkeeda u galaa siyaabo ay ka mid tahay dariiqada Saadiq uu ku gudbinayo dhambaalka iyo codsiga isku sidkan waa Fatma Tahir SomTR TV Ankara